السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة وأنا دين سلامي وحان دين ليهي مالين كلو آد وعن أو آد ونكسن بان دين رجينية ومالين كلو آد قرح بدن آدي آد وأدقون ويا مركا مانتا توبيكا أما عنوانك هذا الكيان وحاوي calaamadaha jacaylka dhabta ah waa cinwaan xasaasi ah wallahi waa cinwaan u baahan in maaragtay la barto ama la ogaado oo aad ay u wanaagsan tahay cinwaankan waxaan ku doortay waxay tahay asxaabtayda waxa ay iga soo codsadeen in aan u soo bandhigo calaamadaha lagu garto jacaylka dhabta ah calaamadaha lagu garto jacaylka dhabta ah inta aanan gaarin ama aanan galin waxaan rabaa inaan ka hadlo jacaylka muxuu yahay waa maxay jacaylka waa daryeel waa kalsooni iyo iska warhayn jacaylka qofka ku jacayl waa qof ku daryeelayo iyo dareen aad dareemaysid qofkanayta iyo muhiimadda uu agtaada ka joogo dareen aad dareemaysid waaye marka calaamadaha lagu garanayo qofka ku jacayl way tiro badan yihiin laakiin inta oo maaragtay la qiimeeyey oo la qiyaasay oo la soo baaray inta ugu wanaagsan ugu muhiimsan baan ka hadlayaa waa calaamado dhowr ah calaamadahaas ayaan hadda dul marayaa insha Allah mid ayaan u taabanayaa ka faa'iideysi wacan insha Allah calaamada koowaad waxa waaye qofka sida dhabta ah ku jacayl alla ayuu ku dhaweynayaa qofka sida dhabta ah ku jacayl waa calaamada koowaad qofka sida dhabta ah ku jacayl Allah subhanahu wa ta'ala ayuu ku dhaweynayaa mar walba oo uu kula soo xiriiro wuxuu ku weydiinayaa salaada ma dukatay ma soontay maanta soonkii sunnada ma soono qofka sida dhabta ah ku jacayl ama dumar ha ahaado ama rag ha ahaado wuxuu ku dhaweynayaa Allah subhanahu wa ta'ala jacaylka midka ugu wanaagsan oo ugu quruxda badan oo ugu fiican waxa waaye midka Ilaahay la isku dhaweeyo oo Ilaahay la tala saarto oo Ilaahay ma aragtay la isku xiro ayaa ugu wanaagsan wiligiisana ma go'ayo marka calaamada koowaad waxa waaye qofka in uu kugu dhaweeyo Allah subhanahu wa ta'ala oo mar walba uu ku soo xasuusiyo dhikriga Allah salaada qiyaamka soonka iyo istighfaarta wax walba inuu ku xasuusiyo calaamada labaad waxa waaye waa qof ku daryeelo qofka ku jacayl waa qof ku daryeelo tusaale ahaan waa qof danahaaga ka fikira shaqadaada iyo adiga wax kastoo adiga ku fiican qofkan ku jacayl danahaaga unbuu mar walba ka fikiraya wixii dan ku ah unbuu samaynayaa waxaana dan ku ahayna wuu ka daynayaa marka waa qof xataa haddii aad isku dhacdaan oo isku dayo qaabka uu kugu soo noqon lahaa ama uu kugu soo ceshan lahaa sababtoo ah in uu ku soo ceshto dana asaga ma aragtay khaas uu leeyahay way adigana uu ku danaynayo qofka haddii aragtid hadaad isku dhacdaan iska kaafasaxayo waa qof aan dana ka lahayn oo adigana danahaaga aan eegaynin marka calaamada labaad waxa waaye waa qof ku daryeelo oo daryeelkaaga mar walba ka fikiro calaamada saddexaad waxa waaye wax walba aad jeceshahay ayuu ku samaynayaa wax walba aad jeceshahay ayuu ku samaynayaa midaas oo ah qofka sida dhabta ah ku jecel shayga aad jeceshahay ayuu ku samaynayaa asagoo xitaa aanan ku ogeysiinaynin
marnaba xitaa kuma ogeysiinaya, si surprise ah adigoon ogeyn buu kaaga farxinayaa, waxaad jeceshahay buu kuu samaynayaa. marka muhiim maahan in uu hadiyad kuu keeno, inuu wax kuu sameeyo, laakiin siduu kaaga farxiyo, hadalla macaan inuu kaaga dhigo qofka, ama ay kaaga dhigto qofta surprise camal, hadal farxad leh, adiga wax walbo aad jeceshahay ayuu kuu samaynayaa qofka. Calaamadda afraad waxaa waaye, waa qof adiga ku qiimeeyo. qiimeynta koowaad iyo mudnaanta koowaad ayuu ku siinayaa qofka. marka qiimeyn haddii la dhaho, waxa uu qofka qiimeynaya waxaa waaye hadalkaaga iyo fikirkaaga ugu badan. wax kastoo aad dhahdid ama fikir aad keentidba wuu kugu qiimeynayaa qofka, waana maxaa la dhihi jiray, wuu kugu qaadanayaa. wax walbo aad tahayna, qaab walbo aad u taalidna wuu kugu qiimeynayaa. si walba ay wax u dhacaan, qalad walba oo dhaco, si walba ay wax u dhacaan, qofka ku jeceli waa kugu qaadanayaa adduunkoo dhan, xitaa hadduu kugu soo jeesto. calaamadda shanaad, wuxuu kuu muujinayaa jacaylka uu kuu qabo. qofka ku jecel wuxuu kuu muujinayaa jacaylka uu kuu qabo. qofka sida dhabta ah kuu jecel, waqti walba oo soo mara ayuu ku siinayaa, qayb buu kaa siinayaa. si walba uu mashquulsan yahay, si walba uu dhiban yahay, si walba uu mashquul doonta uu ku jiro, wuxuu isku dayayaa inuu qiimeyn iyo waqti uu ku siiyo. jacaylkaagana qaab walba uu kugu muujin lahaa buu falkeeda galayaa qofka ku jecel, si kastay noqoto xaaladda. mar walbana wuxuu kugula hadlayaa hadallo macaan oo jacayl ah, kuwaasi oo qalbigaaga soo jiita. hadallo macaan oo jacayl ah, hadalladaas oo qalbigaaga soo jiita. calaamadda lixaad oo maanta aan taaban doono waxay tahay, waa qof ku dhageysanaya. wax walbo aad dhahdid, ra'yi walbo aad keentid, qof ku dhageysanaya oo qaadanaya waayo. ra'yi walba oo adiga ka imaado, xaggaada ka imaado, qof dhageysta waayo. qofka sida dhabta ah kuu jecel waa mid mar walba danaynayo hadalkaaga, mise kula hadlayo. mar walba oo uu nafaas yeesho ama fursad uu yeesho, wuxuu samaynayaa adigoo kula soo hadlaya. wuxuu doonayaa waa maxay? wax kale maaha, inuu codkaaga maqlo oo hadalkaaga maqlo bes uu doonayaa. soomaadan garan. calaamadda toddobaad, midaas oo ah midda maanta aan kusoo gabagabayn doono, waxay tahay farxad iyo murugo ayuu kula qaybsanayaa qofka. farxadda iyo murugada ayuu kula qaybsanayaa. qofka sida dhabta ah kuu jecel, marka aad faraxsan tahay, asagana wuu kula faraxsan yahay. ileen farxaddaadu waa farxaddiisa. mar walbo aad faraxsan tahay, asagana waa kula farxayaa, sababtoo ah farxaddaada waa farxaddiisa, murugadaadana waa murugadiisa. mar walbo aad murugtidna, asaga waa kula murugaya, murugtii iyo wax walbuu kula qaybsanayaa, sababtoo ah murugtaadana waa murugtiisa. waa mid markaad murugaysan tahay mise aad dhibaysan tahay ku caawinaya si aad dhibaatadaas kaga soo baxdo. waa mid niyadda ku dhisayo waqtiga aad murugaysan tahay dhan. wuu ku imaanayaa, waxaan waa wax iska yar, waa 2 maalin ama 1 maalin, waad ka bixi doontaa insha Allah, waad guuleysan doontaa, guusha adigaa leh ayuu ku dhahayaa, niyadda ayuu ku dhisayaa. maaha mid ku codlaynayo waqtiyada aad murugaysan tahay, balse waa mid taageero iyo daryeel ku siinayo. garab taagni, taageero, wax walba ayuu ku siinayaa, uu mar walba kula garab taagan yahay qofka ku jecel oo sida dhabta ah ku jecel. marka asxaabta, waxaan idinkula dardaarmayaa aniga Zubeer ahaan,
jacaylka gacanta midigta ah lagu qabto oo aan la gacan bidixaynin haddii xitaa aad awoodid labada gacan inaad ku qabatid oo ma aragtay lagu qabto oo labada dhinacna la iskala wado marka insha Allah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo